السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن قلب وناكسن habeen wanaagsan wax kastoo ay kuu tahay wanaagsan kusoo dhawow channelka Surbiyaan channel. akhyaartida sharafta leh waxaan la qaybsanayaa quraac yar oo fudud subax waaye maasha Allah oo ukuntaas iyo qudaarta darkiiseen ka kooban halkaan waxaa iigu jira daqiiq ama bur aan soo qastay insha Allah sidaan u sameynayay saan u kala horeysiinayana waa idin tusaaya insha Allah. marka daawasho waxaan dhameysay fiidiyoga wixii ka soo baxa ukuntaan iyo qudaartan waa arki doontaa insha Allah. waa quraac yar oo fudud oo macaan maasha Allah aadna u fudud runtii aadna u macaan. marka wax kana saliid yariis ku shubtay ma baahni saliid badan inaan ma taqaana maqliga ku shubto aan birdaawada hadii ilaahay yiraahdo saa arkaysan wax yar aan ku shubtay kadib waxaan sameynayaa basashi iyo qudaarta ayaan wax yar mataqaanaaye aan soo shiilanaya oo isku soo yar shiilana hadii ilaahay yiraahdo step waaye maraq digaag toon shiidan kramasala filfil intaasaan ku darsaday hadii ilaahay yiraahdo wixii aad jeceshahay oo spicy aad markaad ka helaysid ayaa ku darsanaysaa biidmillaah. intaan baan wax yar isku qaleynayaa kadibna stepka kaleeto ayaan u gudbaynaa iyo maxaa kaloo aan ku daraynaa qaabka kale aan isugu dardari lahayn ayaan insha Allah u gudbaynaa. sidaan ay ready igu tacbaariran shiilay kadib waxaan bilaabaynaa ukunta ayaan waxaan ku soo shubanayaa 4 xabo ukuna haystaa waxaan ku soo shubanayaa madibadan baaquli saahad u taqaanid. markaas kadib maxaan ku soo dari doonaa ukuntaan aan meesha ku shubay marka ukunta wax yar aan qasaa kadib waxaan ku soo darsanayaa qudaartii aad arkayseen oo aan taqaanay wax yar soo shiilay ama soo kariyay ayaan ku soo darsanayaa. waxa aan sameynaa waa quraac subax waaye quraac yar oo fudud haddana macaan inta laga helaa subaxda qaarkood quraacda in la iska bedelo waa inta wixii rootinka ku ahaa ee subax walba cuni jirtay inaad reerka ka bedesho way fiican tahay soo maaha gabdho yaa walaalay. marka waxaan sameynayaa waxaan ku soo shubanayaa waxa aan ku darayo oo hadda aan ku soo shubanayaa waa 2 koob oo bur ah ama daqiiqa waxa kaliya aan ku soo qastay waa cusbo iyo biyo cad wax kale ma ku soo darin. burka aan soo qastay waxa aan ku soo qastay waa cusbo iyo biyo kaliya kadib wixii dhan ukuntii iyo qudaartii wixii dhan saana isugu kay soo bixi ready yihiin hadda waa dubaaya maasha Allah tabaarakallah waa dubaa ilaa wadaan noo siyaad intii aan haysanina si tartiibtaada waxaan sugaynaa cabaar yaraan sugaynaa inaan mataqaana ay hoos ka soo bislaato. waxa waa quraacda ama quraac yar aad iyo aad u fudud waa malawax haddana lagu daray qudaar lagu daray waa malawixii oo qudaar lagu daray. marka waxaan sugaynaa inay mataqaana korka sare ay ka soo qalasho marka aragtid inay korka xogaa ka soo qalqalashay waxay taas waxay ku cadeynaysaa inay soo bislaatay kadib waa gadinaysaa malawax qudaar lagu daray maasha Allah isagoo macaan malawax la arki jiray ama sabaysan jirteen insha Allah waxaan rajeynayaa kana inaad ka faa'iidi doontiin malawaxan saan u fudud ee haddana caraftaan ku dhahay maasha Allah waa kaasa haddaa haysatay waa ku darsanee haddii kale sidiisa ayaad taqaanaya ku cunaysaa. malawaxi waa kaasa waxaan dusha ka soo saaray waa cheese ayaan soo saaray insha Allah. haddaa cheese ka haysanin barbaleen malaha kaligiis waa macaan waa caraf maasha Allah qudaartii baa carfayso cheese dhexda ugu jiro waxaan ku dhahay maasha Allah tabaarakallah waaye ilaa intii aan haysana si anagana noo siyaadi maasha Allah waaye waa quraac fudud tartiibtaada hadba dhinaca ugu gadinaysaa saliid badan ma lahan aad u fudud tahay waa kaasa malawaxeena saanaan ku wadaynaa insha Allah. muhiimada waxay ahayd qaabka isugu daraa inaa aragtiin u soo qasay oo wuxuu ka koobnaa ukun daqiiq iyo wixii adiga aad markii hore malawax ka qasan jirtay oo ina ku jirin sonkor wax sonkor la kuma jirto sababtoo ah dhanaanaan ka rabaa sonkor ma u baahna soo maaha markii macaan laga dhigaa malawax sonkor lagu daraa laakiin wax sonkor hadda aan ku darsaday ma jirto ina dhanaanaan ka rabaa waa cunto dhanaan hadda cuntadaanaan sameynayo dhanaan waaye maasha Allah qof yar iyo qof weyn qof diidaay malahan basbaas wuu ku jiraa haddaad rabin basbaaska waa iska dhaafi kartaa haddii kale waa ku darsanay basbaas iyo filfil qudaarta ayaan ku daray saa arkayseen hadda waa kaasa qurux soomaa saan le ku wadaaya akhyaaray saana kusoo dhumeynaya insha Allah cheeska markaa ku dareysid
kuwii hore aa arkaysan dhexda lay ka saarayay tana saana ugu ballaarin haddaa rabtaan kulligiis oo dhan saan ugu wada ballaarin kartaa haddaa rabtana dhexdaa ka saaraysa waa isla meeshii mar walba waa isku soo gedinaysaa halkaas dhinacaas keenaysaa cabaar yaraa sugaysaa inuu mataqaanaa jiis ku dhalaalo mala wuxuu kuu bisil yahay dabkaagana wuu kuu gaabnaanaa suuna kaaga gubanin marka waxaan sugaynaa hadda jiiska keliya waaye waxa hadda cabaarkan ku sugayno waa kaasa sida quruxda badan leh oo maasha allah tabaarakallaada ah ayuu kuugu dumayaa runtii waa quraac caraf keliya macaana maasha allah waxaan rajeynayaa walaalahayga igu xiran ee sharafta badan inay ka faa'iideysan doonaan waa kaasa jiiska marka ku dhalaalay ina arkaysiinaa rajeynaa saas u dhalaalay hadda waxaa waaya ready marka waa ka qaadaynaa waa kaasa quruxda maaha macaana way tahay indhahaasaa uga aragtiin ee ugu qurux badan tahay dhadhankeedana u macaanya tabna u yahay marka walaalahayga waxaan rajeynayaa quraacdan fudud ee waqti badan kaga qaadanaynin insha allah inaad ka faa'iideysan doontiin lana wadaagi doontiin asxaabtiina waa taas waa soo wada dhameeyey la sheer gareeya walaalihiina kale si ay uga faa'iidaan quraac yaro fudud oo loo bedesho quraacda marmar marka waa kaasaa jiiska saasuu noqday maasha allah waaye akhyaarteyda saa inii sheegaba ka faa'iideysta insha allah waxaa waaye wixii aan mar walba aniga aan mataqaanaa ka faa'iido oo ii fudud ayaan jeclahay inaan idinla wadaago saa uga faa'iidiin marka saaka waxay ahayd quraacdeenaasi yar baan mataqaanaa idinla qaybsanaya haddii ay tahay markii kuugu horeysay aan soo booqato biliis naga ilaawin subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ka intaba aadaa u mahadsantiin dhammaan